حقا قذالة ورسمي نكا قعنتك جاكيت بلوغ ها بسم الله الرحمن الرحيم مركو هore waa salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyo ciidamada amniga sugaya ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waa salaamaya magacaaga bulshooyinka howlkan ka soo qayb gashana waa salaamaya magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Faarax Looyaan waxaan ka tirsanahay abwaanada qaranka Soomaaliyeed waxaan weydiinayaa madaxweynaha xaaladdu intay yahay qof iyo cod aniga waxaan ahaa dadkii ka mid ahaa ee taageersanaa waayo dhalinyaro aan ahay bahashii haddii loo weeciyey doorasho dadban dad badan oo aniga aan ka mid ahay oo ka mid ah bahda fanka ama wariyayaasha Soomaaliyeed oo aan isku bahanahay sanadka dadka ku tala jira doorashadu in qof iyo cod noqoto sanadkana ay ka qayb galaan qoliyaha sharaxaya ayaan ku tala jirnay waayo bulshadu wayna taqaanaa abwaaniinta Soomaaliyeedna inta badan waxay ka shaqeeyaan wadaniyada iyo horumarka iyo dawladnimada maadaama aanu arintaa ku fakaraynay bahasha haday noqotay doorasho dadban mudane madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan bahda fanka anagu waxaan codsanaynaa haddaan bahda fanka nahay sida haweenka Soomaaliyeed ay qoondada loogu qoondeeyay in bahda fankana ay qoonda helaan waayo door bay leeyihiin marka intaas su'aashaas ayaan weydiin lahaa madaxweynaha waa maasantii xaqiya jooga marka gabadha dharka cas wadata السلام عليكم والسلام يا مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مقعي وحفصة محمد حسين كويلي مقعة حفصة محمد حسين بالدها حفصة محمد حسين مدحوينها waxaan weydiinayaa madaxweyne xilligii doorashadii abaabulkeeda ahayd waxaad xoog saaraysay inay helaan qoondada haweenka inta loogu talagalay fiiladan aan joognay quruxda badan ee aad maamusho oo fiila Soomaaliya ma jiro hal gabar oo agaasimo ka ah ama maamusha waxa dhinacyada taagan oo fiilada dhan jooga waa rag haddii aad lacala soo noqotid maxaad kaaga qorshaysan gabdhaha misaanay wiilasha u joogayaan oo gabdhaha banaanka la geenaya waxay tahay cadaawada adiga gabdhaha inta dhaxaysa madaxweyne waa maasantahay ninkii mikrofoonka gabdhaha yaro roonaanaya gabadha kale iyana xijaabka cas wadata بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Sahra Maxamed Fariid mudana madaxweyne waxaan ku weydiinayaa gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay ka tirsan yihiin wadanka Soomaaliya international community waxay ku qoran yihiin inay yihiin disputed area oo isku haystaan laba gobol anu ma garanayo dawladdeenu waxay aaminsan tahay inay disputed haday yihiin waa meel ay isku haystaan laba dawladood waxa isku haystaana waa laba gobol oo wadankii ah marka see loogu aqoonsan yahay inay yihiin disputed area su'aasha meesha ku jirta oo ah dadkaas doorashadoodii systemka ay hawshoodu u qaybsan tahay waa system aan la yaabanahay si xuquuqdoodii waxa la raaciyay Somaliland haddana doorashadoodii iyo siyaasiintoodii waxa la raaciyay Puntland marka say isu qaban kartaa maxay u noqon waayeen sida dadka Somaliland halkan loogu dooranay ama meel kale ama maadaama ay Puntland leedahay laba magaalo ay leedahay way ay u yeelan waayeen reer Sool iyo Sanaag ay meel iyaga lagu soo doorto assalaamu calaykum safkan hore ninka adiga بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه magacaaga magacaygu waa Maxamed Cali Cusmaan waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo madashan madaxweynahan aan su'aalahan weydiiyo saddex su'aalood oo ku saabsan doorashada ayaan jeclahay in madaxweynaha saddex ugu badan yihiin su'aasha waa soo koobay ayuu su'aasha koobaad golaha shacabku wuxuu ansixiyay 13 kursi oo aqalka sare ka mid noqonaysa madaxweyne adiga ayaana ka codsaday dabcan waa dastuurkana waxa ku qoran 54
inuu ka kooban yahay aqalka sare waa maxay mowqifkaaga ku aadan arrintaa iyada ah su-aasha labaad faragal ma ku celiyaa su-aasha ku celi lama fahmin golaha shacabku wuxuu ansixiyey 13 kursi in gobolka banaadir in loogu daro 13 kursi aqalka sare dastuurkuna wuxuu qabaa aqalka sare xubnihiisu inay ka kooban yihiin 54 waa maxay mowqifka madaxweynaha ee arrintaa ku aadan su-aasha kale waxay tahay faragelin shisheeye ayaa madaxweynuhu hadda ka hadlay khudbadiisii horena way ku jirtay dowladda Kenya oo ciidamadeedu ay waddanka ku jiraan oo maanta aan xataa ay barnaamijyo ka jireen gobolka Gedo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenyana aysan xiriirkoodu hadda wanaagsanayn sida dabcan aniga aan u arko saamaynta ay doorashada soo socota ku yeelan karaysaa siday noqonaysaa su-aasha ugu dambaysa adoo raalliga socoto madaxweyne qof iyo cod inay waddanka ka dhacdo ayaad u soo ololeysay way dhici weyday qof iyo doorasho dadban ayaa lagu noqday doorashada soo socota anigoo dabcan guul kuu rajaynaya haddii aad lumiso marka la gaaro 2024 ama 25 haddii ay qof iyo cod noqoto doorashadu ma u soo tartamaysaa adoo mahadsan waayahay saddexdaasaan ka jawaabayna insha allah madaxweynahan siinaya maxamed cabdi faarax بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد فارح wuxuu yiri dhalinyaraan ahay marka haduu dhalinyar yahay maxamed cabdi faaraxna dhalinyaraan ahay bahda fanka qaybta ama doorka ku leeyihiin doorashada ma aha kaliya cod waxa weeye dadka inay maxaan ku yiraahdaa wacyi geliyaan oo suugaan wadaniyad badan ku jirto iyo dal jaceyl iyo in musuqmaasuqa oo wanaagsanayn dawlad wanaag intaas oo dhan waxa la rabaa inay heeso iyo geeraaro iyo gabayo ka tiriyaan marka doorkiina waa kaas horta xafza qoondada haweenka gabdhaha villa Soomaaliya waa su'aal wanaagsan xafza waxaan ku sheegayaa waxa ka noqotay halkan gabar aamina la yiraahdo aamina sicid la yiraahdo waxay noqotay agaasimihii guud ee madaxtooyada ee ugu horeeyay ee gabar ah marka taas waxay ku sheegaysaa inaan gabdhaha jecelahay ogow su'aasha rooda ee ka hadashay Soomaaliya sanaag iyo electionkeeda roodo su'aashaada waa adagtahay kama jawaabi kar raaligow محمد عثمان قبل كبنادر يو قنددا أقل كسدحي تمن ك أقل كسريعة أرنتان حقيقة وأكتهين أنا قاعد بلابي إن أنا عطسده برلمان كان كعطسده إن مثلاً لازم قبل كبنادر يجونا واجبين عطسجيجا أو واقبلين waxay ka soo saareen qaraar ay ku aqbalayaan in loo ogolaado gobolka banaadir 13 cod 13 xubin oo aqalka sare in loo ogolaado arintaasi waa laba qaybood qayb sharciyad iyo dastuur ah iyo qayb siyaasadeed qaybta siyaasadeed waa dhamaatay oo waxa ugu dambeysay 2 usbuuc ka hor yaa waxaan isugu yeeray xafiiska isugu yeeray gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir gudoonka labada aqalka sare cabdi xaashi iyo golaha shacabka gudoomiyaha maxamed mursal oo aan u sheegay in ay soo dhaaftay hawshan siyaasad ay soo dhaaftay oo baarlamaankuna ay aqbaleen siyaasad ahaana la isku raacay marka wixii markaan ka dambeeya inay galaan farsamo sidii u waafajin lahayn dastuurka marka su'aashaas iyaga weydii iyaga ku maqan tahay arinta dawladda Kenya doorashadan ma ku yeelan doontaa saameyn waa su'aal da'weyn waqtigeeda sugeynaa insha Allah waa mahadsantihiin
aada u mahadsan yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi markaana waxaan isku dayay inaan su-aalaha dadka naga maqan ee bannaanka jooga ee daawanaya inaan mid ka mida soo qaado oon madaxweynaha weydiiyo waxaa aan soo qaadayaa doctoresa caaliya mursal oo joogta dalka jarmalka waxay leedahay madaxweynaha khudbadihiisii hore waxaa ku jiray erayo ay ka mid ahaayeen waxaan doonayaa inaan isku hayo dalka muxuu ula jeedaa ma inta doorashada ka dhimanbaa ma kadibba inaad dalka isku hayso muxuu ula jeedaa bay leedahay jarmalka joogtaa su-aashaasaan jeclaan ugu soo dhex dara insha allah caaliya mursal oo joogta dalka jarmalka waa su-aal wanaagsan caaliya madaxweynuhu shaqadiisa loo dhaariyey hawsha iyo shaqada loo dhaariyey madaxweynuhu waxaa ugu horeysa inuu ilaaliyo midnimada soomaaliya iyo qaranimada soomaaliya inuu ilaaliyo ama ha ahaato xilli doorasho ama iyaysan ahaanin bacdamaa hadda inaga soo gashay xilli doorasho oo ah xilli aad iyo aad u adag kumaba sii jirtaba waa ka adag tahayba inaan dalka isku sii hayno marka waxaan kuu sheegayaa dastuuriyan madaxweynuhu shaqadiisu waxa weeye dalka iyo dadka soomaaliyeed midnimadooda iyo wadajirkooda inuu adkeeyo waa mahadsantahay oo usoo laabanaynaa arrimaha bulshada waxaan jeclaa inaan markaa safkan baa aad iyo aad dhowr jeer aan ka boodbooday marka wiilashaan siinaya insha allah ninkaa geeska xiga ha raalleho wuu kuu soo laabanaya insha allah waan kugu xijinaya insha allah waan kugu soo xijinaya ninkaas siin insha allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورسمي محمد علي ورسمي محمد علي والسلام يا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية يو دمان مرتي الشرفة مدن مدحوينه وحنجعلها هنا وحكاوي ديو قوندنا الكوري هوين كرالي هذا قبلها أنا waxaan ka mid ahay dadka aad ugu hanweynaa doorasho qof iyo cod ah laakiin ma aysan dhicin adiga waxaa tiri waan tanaasulay laakiin xoogaa in laga adkaadaan aragnaa waxaan jecleen doorasho qof iyo cod ah inay waddankan ay ka dhacdo waa laga soo gudbay dadka laga yaabo inuu hanka ku jiro ama u hanqaltaagaya siyaasadda inay ka mid noqdaan haddana waxaa la aaday doorasho dadban oo runtii danaheenna aanan ka turjumaynin beelaha qaar haddii aan bahasha si qabiil u hadlo kuraastooda hadda dumaraa ku fadhiya baarlamaanka ayaan dhaweyd waxay dhaheen qoondada dumarka sidooday ahaanaysaa taasoo annaga aan u aragno cadaalad darro gabdhaha waxay mudan yihiin 50% iyo ka badan maxaa diidaya inay gabdhaha si xor ah u tartamaan ay ragga ula tartamaan 70% xataa mudan yihiin mudan madaxweyne muxuu yahay mowqifkaaga ku aadan qoondada haweenka iyo kuraasta hadda dumarka ay ku fadhiyaan waa maasanta ninka odayga ha isaga udhib waa maasanta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد عثمان شيري مدحوينه وحويدينا يا سؤال كوبان مدن مدحوينه محمد عثمان شيري dalka soo hogaaminaysay anaguna taageerayaasha adoon ahayn welina waana si ahaan doonaa inta kadib anagu madaxweyne waxaan dhalay waqti qaran Soomaaliyeed jiro dalkeenu maanta wuxuu maraya marxalad xasaasiya dalkeenu waxa waaye maanta waxaad moodaa inay jiraan awooda isdhinac isu dheelatiran annaguna waxaan awlaadeena macruurtana ugu sheekayna dalkeena in hal meel laga hago aniguna waxaan ay dadka jecel mar walba in dalka hal meel laga hago goormuu dalku noqon doonaa in hal meel laga hago oo maaragtay awoodaha isdheelitiran qaab kaleeto oo county ah ama awoodo yaryar oo dalka hal meel laga xukumo goormuu maaragtay maxaa kaaga qorshaysan sidaasaan su-aashaasaan ku weydiinaya ku celi weli hal mar ku celi su-aasha waxa waaye dalku wuxuu maraya marxalad xasaasiya awoodo isdhinac maaragtay isu dheelitiran baa waddanka ka jira adiguna aad ugu sarreyso aad tahay maaragtay maynka ugu sarreeyey marka su-aashu dulucdeeda waxa weeye maxaa kaaga qorshaysan dalka in hal meel laga wada xukumo oo mustaqbalka soo socda adigu maaragtay maxaa kaaga qorshaysan koobanta su-aasha waaya
xagga gadaale ninka hadda istaagay jaakadda greyga wata ha adigoo ku bilaabaya magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. codkaaga uu yaryahay mikrofoon kor u qaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waxa weeye Dr. Cabdijabaar Dhagjar Cabdijabaar waxaan ahay wiil reer Soomaaliland gaar ahaan ka yimid magaalada Boorama madaxweyne waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiiska aad gaadheen adiga iyo maamul goboleedyadu deegaamadan ka soo jeednay Soomaaliland ma laga tala geliyay su-aasha labaadeen rabay inaan ku weydiiyo madaxweyne waxa weeye Soomaaliland xaalkeega waad ogtahay beri ka maalin haddii Soomaaliland ayaba soo laaban lahaydba yacni dadka maanta kuraasta ku fadhiya ee adigu ugu horeyso ma tanaasul ma samaynaysaan kuraasta waddanka ugu sarreeya inaad siisaan oo xaal uga dhigtaan waxa weeye mataqaanaa taa diyaar ma u tihiin mid saddexaad baan jeclaan lahaa haddaad igu darayso mudane madaxweyne doorasho dadban waxa weeye dee waad isku ogtahay carqaladaha ay leedahay annagana waxaan hor jooga haddaan reer Soomaaliland ahay dad waxa weeye shirkii Embagaati ilaa hadda maanta fadhiya sida u eegtayna waxa weeye rag waxa weeye intay kuraasta fadhiyeen xoogaa jeebkana buuxsaday ta soo socota rajadeeda waan aragnaayo nibanku ka shilin badan yahay ayaa noo muuqata inuu soo baxayo dadka jeebadaha igu maran yahay haddana han kale maxaad madaxweyne u sheegi lahaa intaas ku soo dhaweeyay aad ma santahay saddexdan su'aal aan ka jawaabayna insha Allah madaxweynaha siinaya waxaan malayaa warsamo ugu horeeya بسم الله الرحمن الرحيم ورسمه وحيري قوندada dumarka hadda jira ha loo badiyo saan u fahmay boqolkiiba 30 weeye wuxuu leeyahay boqolkiiba 50 ha laga dhigo laakiin tartan ha la geliyo boqol iyo 30 ma hadda waa boqolkiiba 24 24 taas kuma imaan baryo waxay ku yimaadeen doorasho ku yimaadeen haddii ilaahay u badiyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay intaas ka bataan hadduu ilaahay yiraahdo laakiin waxa weeye boqolkiiba 30 waa target weeye marka hadda targetkaas ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo dumarka qoondadooda inay gaarto boqolkiiba 30 iyo in ka badan tartankuna waa furan yahay tartan dumar loo xiray ma jiro tartanku waa furan yahay way ficnaan lahayd xaqiiqatan in la og yahay xaqiiqatan inta dumar soo noqonaysa way ficnaan lahayd laakiin haddii la yidhi waa tartan anu kolleyba waa jeclaan lahaa inaan caawiyo gabdhaha hadduu ilaahay yidhaahdo maxamed shire wuxuu yidhi dalka mala gaaraya hal meel in laga xukumo dalkan muddo ayuu wuxuu ku jiray runtii xaalado adag aad iyo aad u dhib badan ayuu ku jiray dhibaatooyin badan ayuu ka soo kabanayay dadkii waa kala tageen waa la kala irdhoobay hadda yaa bilaabanaysaa in aan ku heshiinay federalismka marka inaan xoojino federalismka qaababkii la isugu imaan lahaa oo awoodahan loo qaybsan lahaa khayraadkan loo qaybsan lahaa hadduu ilaah yidhaahdo waana qayb ka mid ah dhammaystirka dastuurka hadduu ilaah yidhaahdo waa gaaraynaa waqti isqabqabsi uusan jirin waxaani federalismka waa wax nagu cusub qof walba sidee la tahay yuu u fasirtay iyo maalintaas uu joogo laakiin waxaa la heli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo fasiraad wanaagsan oo ka muuqda dastuurka iyo haddii fasiraaddaas ay gasho shaki ay gasho meel ka sarraysa oo la aado oo ah maxkamadda dastuuriga oo kala saarta dadka hadduu ilaah yidhaahdo laakiin meesha aan hadda taagannahay way ficnaan lahayd inaan ka sii fiicannahay oo meel ka sii fiican aan joogno haddana naftigeeda dalku waa socdaa horuu socdaa maalin walba meel yaan joognaa meel baan taagannahay waana horena waa u socon doonaa hadduu ilaah yidhaahdo arrinta cabdi jaabir uu yidhi
maxamed shire waa sheegay cabdijaabir arrinta ah wada hadalka soomaaliya ee somalilan yuu ku soo celiyey iyo doorkay ku lahaan karto doorashadan su-aashaasi kolleyba dee uma baahna fasiraad uma baahna su-aashaas jawaab uma baahna laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wada hadalka iyo wada jirka iyo midnimada soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatanna horaan usoo jeediyeyba wax cusub ma aha hore yaan usoo jeediyey haddana diyaar yaan la ah hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsanta waa yahay gabdha waxaa ka siinayaa maryan habeen wanaagsan madaxweyne waa ku salaamay magacayga waa maryan axmed geedi maxadka raas waan salaamayaa oo barnaamijkan soo abaabulay madaxweynaha waxaan u wadaa 3 su'aalood oo kala duwan midda koowaad maadaama aad ka shaqaysay xilliga aad xilka haysay musuqmaasuqa aad la dagaashay dowladnimada wax badan aad ka qabatay sida ciidamada xuquuqdooda oo helaan muddada maaragtay 25 bisha midda kale oo aad aan kugu amaanayno waxay ka mid tahay xuquuqda sida kale maaragtay shaqaalaha rayidka dowladda oo isla xuquuqdooda helaan ma laga yaabaa haddii aad xilka banaysid madaxweyne annagoo kuu rajaynayna inaad soo noqotid waddanka muxuu geli doonaa horta taas waa inay ummadda soomaaliya isweydiiso midda ku xigto maadaama waxyaalahaas oo dhan aad ku guulaysatay maxkamadda dastuuriga oo kuu dhiman ma dhammaystiraysaa inta aan doorashada la aadin intaasaa madaxweynaha ayaan dhihi lahaa habeen wanaagsan waa yahay ninka gadaalaha ah bismillaah magacaygu waa maxamed xasan waa salaamayaa madaxweynaha su-aalahan horta qabay badidoodii waa la soo jeediyey laakiin su-aal aada iigu taagan oo kala jirtay maadaama la isla oggolaaday doorasho dadban dhibaatooyinka ku hareeraysanna aan ognahay inay badan yihiin qorshayaasha doorashada dadbanna ay qayb ka yihiin 101 xubnood iyo odayaashii dhaqanka meeshaan u socdaa waa odayaasha dhaqanka oo aan ognahay doorashadii hore ee dadbanayd inay caqabada kala kulantay al-shabaab markaad doodayseen idinkii maamul goboleedyadu arrintaa meesha ma ku darsateen in doorashadan dadbane la aadayaa ay khatar kale kusii ahaanayso odayaal mise taa laysmaba weydiin intaasaan idin weydiin aada umahadsan tahay safkan ugu horeeya ninka hadda gacanta kor taago taagan jaakada madow suudka madow wata iyo tayga muraayadaha wata haa waa adiga magacaaga adoo ku bilaabay bismillaah magacayga waa maxamuud axmed yuusuf codkoo yari magacayga waa maxamuud axmed yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan uga mahadcelinaynaa inta uu xilka joogay sida uu dhalinyarada 70% ku dhow inuu masabyo fara badan uu ka siiyay xukuumadda dhalinyaradaas oo ah sida xeeralyaha guud ee gobolka banaadir agaasima ku-xigeenka madaxtooyada marka madaxweyne aad baad u mahadsantahay taas su-aashida haddaa soo dhaadhaco madaxweyne gobollada aan ka soo jeedno ee waqooyiga soomaaliya doorashadooda waxay ka dhici doontaa gobolka banaadir madaxweyne dhalinyarada 70% ah waxaa hortaagan caqabado badan oo aan la soo koobi karin marka madaxweyne ma noo garanti garayn karaysaa mas-uuliyiinta magacaaban ama kuraasta wasiirnimada ku fadhiya inaanay nagula tartamin hantida ummadda soomaaliyeed iyo masabka ummadda soomaaliyeed aad baan kaaga mahadcelinaa madaxweyne aada mahadsan tahay madaxweynahan siinaya 3 su'aalood inuu ka jawaabo oo soo laaban doona insha allah بسم الله الرحمن الرحيم مريم waxay tiri waqtiga hadda haray ma laga gaarsiin karaa in maxkamadda dastuuriga la magacaabo
qorshaha waa noogu jirtay waxaa haray hadda waa 3 bilood haddii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare ay arrintan xoog saaraan waxaan inay ka dhabeeyaan laakiin qorshuhu waa ku jira arrinta see loo kala maareynaya doorashada dadban iyo shabaab waa xaqiiqo weeye shabaab dee bulshaday ka tirsan yihiin oo meel walba isaga dhex jiraan sababta aan ugu darnay ururada bulshada yaa qayb ka ah iyada naftigeeda vettingka sameynaya waana ka dadaalaynaa insha allah waana ku dadaalaynaa in dadka ergooyinka ka midka ah ay noqdaan dad bulshadu ay taqaano ayna ku taqaano inay yihiin dad hufan oo soomaalinimadooda ay fiican tahay oo aanan xiriir la lahayn sharwadayaasha maxamuud axmed yuusuf doorashada gobollada waqooyi ee ka dhacaya magaalada muqdisho maxamuud doorashadu waa furan tahay doorashana sideedaba waa nasiib iyo dadaal iyo farsamo marka intaas haddaad la timaado waxaa laga yaabaa inaad xildhibaan soo noqoto hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsan tahay aad u mahadsan yahay mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi markaana waxaan u laabanayaa xagga dadka qad internetka naga daawanaya adduunka nagala socdo su-aalahayna weydiinayaan mid ka mid aan soo qaadi doonaa insha allah su-aasha ugu horeysa waxaan ka soo qaadayaa cabdirasaaq xaashi geedi oo jooga magaalada london waxa uu yidhi madaxweynaha waxaan weydiinayaa odayaasha la yidhi waxay soo xulayaan ergada ee 101 ka kooban doorashada ma waxay ka imaanayaan 335 oday miyay ka imaanayaan oo hore u jirtay xilligii dowladdii hore mise hab kalaa lagu soo soocaya ayuu leeyahay su-aashaas waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq xaashi geedi oo jooga london odayaalkii la yidhi waxay soo xulayaan ergada 101 doorashada codbixinta baarlamaanka bixin doona ma waxay ka imaanayaan odayadii hore 135 ahaa mise waa kuwo cusub oo la xuli doona iyaga macnaha ergadana ma la xulayaa odayaalkana ma la xulayaa su-aashan waxaan jeclaa madaxweynaha inuu ka jawaabo dabadeedna waan isin doonaa insha allah jawaabta cabdirasaaq waxa weeye ergada xulitaankeedu sidaan sheegnay heshiiskan ku gaarnay waxaa qayb ka ah odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo civil society-ga iyo maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka oo hadhow diiwaan gelin doona ama qayb ka ah 135taas oday khasbiyan waxaa laga yaabaa qaarkood inay waa hor dhinteen yaa laga yaabaa aysan hadda ku jirin meesha waxaa laga yaabaa inay si kale u xanuunsan yihiin ama aysan joogin yaa laga yaabaa laakiin waxaan sheegi karaa aniga oo keliya in iyaguna ay ku jiraan kuwa kalena lagu dari karo saasaan isleeyahay arrintaasna runtii waa arrin ay dadka dowlad goboleedyada iyo deegaanada ay joogaan ay leeyihiin go-aankeeda aad mahadsan tahay waxaan ku soo celinayaa su-aalihii annagoo soo gabagabaynaa insha allah ninka xagga koofiyadda ruuxaya waxaan leena wejigiisa garanaya yuusuf waa dhallinyarada isboortiga wax badan buu gacanta taagi raalli ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام مدحونا ku salaamay iyo akhyaarta ka soo qayb gashay waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood oo muhiim ah maadaama shacabka Soomaaliyeed ay rabeen doorasho cod iyo qof in la qabto oo aad dadaashay ay ku garabsiin waayeen inay barnaamij u soo baxaan ay muujiyaan shucuurtooda inay rabaan doorasho cod iyo qof
weli fursadaa jirto dadka wax dooranaya weli waa shacab marka waxaan jeclaan lahaa dadkaas in la dhiirigeliyo oo musuqmaasuqa sidii looga dareeri lahaa ma laga yaabaa inaad samaysid road map oo 2024 dowladda dhalan doonto ee kaga shaqeyso doorasho cod waddanka in la gaarsiiyo oo isbaarada oo maamulgoboleedyada waddanka ku haya looga gudbo oo isa dhicin madaxweynaha haddaa soo laabtay haddii kale madaxweyne kale imaado aysan mar labaad ee u hor istaagin in hadda road map lasoo sameeyo oo guddiga doorashooyinka xalimeera inay sii shaqeeyaan oo 2004 dadka u diyaar garooba in doorasho cod qof la gaaro su-aasha labaad ku weydiinayo waxaa waaye maadaama baarlamaanka Soomaaliya la rabo inay sharciga iyo dastuurka ilaaliyaan haddana inay xukuumadda marka la galaan dowladdii hore wasaare qaare kulligood badanaa waxay ahaayeen xildhibaano ma laga yaabaa dowladda cusub in dadka shacabka fursad la siiyo oo dad aan xildhibaano ahayn laga dhigo golaha wasiirada waa madsantay safkan baan usoo waacayaa ninka odayga ha بسم الله ومهد علينا يا مدحوينها جمهورية مدير محمد عبد الله فرماجو sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahad celiyo macadka raas oo runtii isaguna soo khawlay inuu munaasabadan noo maaragtay suura geliyo magacaaga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiwali Maxamed Axmed bulshada rayidka aan ka socdaa mawduucan waxaan is leeyahay waa mawduuc runtii mudan kuna soo aaday waqti muhiim ah mudane madaxweyne waxaan dhageysanay hordhici aad samaysay annagoon siyaasadda runtii la soconay annaga laftarkeeno marxaladii ay soo martay bulshada maadaama aan ka tirsannahay runtii waxaan rabaa inaan horta waa kugu ammaanayaa inaad tahay madaxweyne aan sharciga ka baqin runtii waxaa la soo maray marxalado badan waddanka 4 sano oo wax dhiman oo hadda aad joogtay waana u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed madaxweyne geesiya oo markii ay joogto arrimaha dibadda ama arrimaha maaragtay saameynaya masiirka ummadda madaxweyne go'aana adag ka qaadan kara runtii oo aan aysan cabsi gelinaynin horta waa kugu ammaanayaa ha iska jireen waxyaabo loo kala oo laga yaabo in sida loo maareeyay si kale oo ka habooneed ay jiri karto midda ah doorasho qof iyo coda ayaa dadku inta badan ay rabeen oo sida hadda aad ka dareemayso reactionka dadka dhalinyarada u badan oo meesha jooga annaguna sidaasaan qabnay laakiin xadiis nabi ayaa wuxuu ahaa يعني لبا dhibaato midii roon ayaa la qaataa si aan fasaad kale oo aan ugu dhicin runtii ayaduna waa nooc kale oo geesinimada kamid ah haday ku muuqatay dalku inuu kala tagayo ama political anarka cusub uu galayo runtii ayaduna waa ku amaanan tahay midda dhalinyarada runtii waa la qaba dhalinyarada dowladda dhalinyarada inay tahay waan jeclaan lahaa rag badan oo hadda meesha jooga haday ka maqnaan lahaayeen waa amaani lahayo hadda Cabdinuur iyo uu kamid yahay oo agaasinka madaxtooyada iyo Cabdirashiid iyo tiim badan mudane madaxweyne waxaan jeclaan lahaa laba su'aalood oo midna kaftan ay tahay midna ay tahay su'aal doorashada ku saabsan midda koobaad oo kaftanka aan soo hormarsaday mudane madaxweyne dhuusa mareeb 2 iyo 3 ilaa midii xamar hadda u dambeysay iyo ka horba doorasho qof iyo cod aad ku dhaganayd laakiin aakhirkii u dambeysay xoogaa waxaad u baqday in sida aad xafladii sagootinta madaxweynayaasha dowlad goboleedka habeenkii dhaweedba aad u samaysay inaad istiri war hadday nimankii isla safteen odaynima lagaaga baahan yahay maaragtay ma laga yaabo mudane madaxweyne in habeenkaas saxiixaas markaad qaadanaysay aad u arkaysay oo aad baqdo islahayd war armayba dadka dhameba taageersan yihiin doorasho dadbano nimankaani muxuu ahaa aanay dadku kugu aragtay yahay oo haddaad munaasabadan maanta aad hadda caawa ka qayb gelayso aad ka qayb geli lahayd ka hor arrintaas ay ku muuqan lahayd inaad geesinimo ka qaadi lahayd oo aad u difaaci lahayd horta su'aashaas waa su'aal kaftara midda labaad waxa waaye ummadda Soomaaliyeed waxay waay arag mudane madaxweyne ku tahay 2016 wixii waddanka ka dhacay ceebtii doorashooyinka dadban ka dhacay ayaa ummadda waay arag ku tahay hadeerna waxaad moodaa inay wax badan wadaagaan qodobada la soo saaray marka mudane madaxweyne runtii adigoo aad ugu ammaanan isku dayga aad isku dayday in doorasho hagaagsan oo hufan oo shacbiga u dhow inay ka dhacdo dalka adigoo aad ugu ammaanan haddana qafafa darareynkii haddaad qaadatay waa ku ammaanan tahay laakiin waxaan rabaa inaan mudane madaxweyne ku weydiiyo sidee dowladdu u damaanad qaadaysaa waa ku dheeraatay walaal mudane madaxweyne sidee dowladdu u damaanad qaadaysaa in ceebtii
musuq maasuqii iyo waxyaabay waddanka ka dhacay inaanay sidii iyo si la mid ah aanay u dhicin sidee u damaana qaadaysa aad umahadsan tahay hal gabar baan ku darayaa gabdhaha ka mid a gabadha geeska xigta labadiina waa idin kala dooranaya middaa dhinaca xigta ha magacaagaad waa ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وهذا اسماعيل القلبي وحن كايم سوماليلاند gaar ahaan Hargeysa madaxweyne Farmaajo aad baan salaamaya su'aashan weydiinaya waxay tahay mudane madaxweyne tan iyo markii aad kursiga ugu sareeyay madaxtinimada ee dalka qabsatay ilaa imika oo wadanku doorasho galayo mar kasta waxaad ku celcelisaa Somaliland idaydan kala maarmeynin idinkuna aydan ka maarmin wadankuna aanu kala go'aynin 4 sano oo aad xafiiska joogtay Somaliland wax wada hadal la maadgelin sanadkii aynu imika ku jirnay 2020 bishii 6 baad Djibouti ku kulanteen Somaliland iyo Soomaaliya go'aamaha ka soo baxay ah in shirka 15 cisho kadib guddi la saaro Somaliland iyo Soomaaliya dib u Djibouti uga furmo 3 jeer uu shirkaasi dhankiina ka baaqday anigu waxaan ka mid ahaa qolooyinkii warbaahinta ee goobjooga u ahaa maxaa baaqiyay soo lama oran karo wada hadal iyo Somaliland inaad wada hadashaan diyaar uma tiidin inaad markaa wada hadalku furmana doorashadu baad ku galayso waxa islahayd un ka dhabay go'aamadaadii aad ma santaa waa rooda Soomaaliya hooda way marka madaxweynaha siinaya saddexdaas su'aal inuu ka jawaabo insha Allah يوسف بابوريان مولانا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم يوسف سؤال شيسا إلا سميو رود ماب oo lagu galo loo diyaariyo 2024 iyo 25 2025 waa lagu ballamay in doorashadu markay dhamaato in la qoro oo la bilaabo waliba anigu waxaan soo jeediyay in hadda la sii bilaabo qaybteeda hore la sii bilaabo guud ahaan dadka hadda joogana ay heshiis ku galaan markuu election-ka dhamaadana iyada naftigeeda la sii xoojiyo marka hawshaasi waa hawl laga hadlay in loo baahan yahay road map inaan dib loo noqon wax alla wixii hadda khaldamena la saxo bacdama hadda sharciga doorashada la hayo wax alla wixii ka dhimanna loo dhammaystiro dowladda cusub wasiirada la magacaabi doono bannaanka ma ka imaan doonaan wey su-aasha kale uu weydiiyey taas waxaa weydiisaan prime ministerka insha allah wasaaraha cusub weydiiyey su-aashaas cabdirasaaq cabdiweli bulshada rayidka ka socda ma la damaanad qaadi karaa in musuq maasuq laga fogeeyo electionkan horaa loo yiri soomaali musuq maasuq waa meheraddeeda marka waxaa laga rabaa abwaanada iyo dadka culummadu inay dadka ka wacyigeliyaan in musuq maasuq uu xun yahay laaluushka uu xun yahay si looga fogaado laakiin waa inaan helno mekanism walba oo lagu yareyn karo ama lagu tirtiri karo musuq maasuqa hadduu ilaah yidhaahdo hooda horta aadaan ugu faraxsanahay caawa reer Somaliland inay meeshan ku badan yihiin waxay la tahay dadkii waa isdhex galay marka hadda kuwa badan waa sugaynaa inay yimaadaan insha allah waa mahadsan tahay hooda su-aasha ay weydiisay waa su-aal wanaagsan annaga miyaa ka mas-uulah in la baajiyo kulamadii aan u ballannay waxaan odhan karaa labada dhinacba annaga qaybteenna waa qirayaa waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabinno laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay 2 sano iyo bar ka hor iyay bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anigu waa iga go'anta runtii waa iga go'an tahay
ma aha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masiir soomaali weeye waa mustaqbal soomaali weeye waa caruurteenna mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas-uulah oo damiir soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed waa mahadsantihiin safkaanan ka maqnaa muddo shacayb بسم الله بسم الله مدقعك محمد تهليل تهليل على إلها وعن كسعودة أوبح عاصمة وأرد اليرد الصومالية كشقة إذا أرمان اليرد يدب رزق وطنك سؤال شيء وحيل حرر تدور الشذا 2016 waxaan howlwadeenada waxaan ka mid ahaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka ee doorashada waxaa dhacday in kuraas badan ay baarlamaanku soo boobeen oo qayb ka mid ah baarlamaanka ultimate lagu dhigay 21 inay ahaayeen oo maleynaa si sharci darro ku soo baxay kadibna laga foqo la yiri baarlamaankeena hore ka galay dhikaaradii loo sameeyay mudane madaxweyne haddii ay dhacdo in sidaas oo kale ay dhacdo doorashadan soo socota maadaama ay u qaab eg tahay maxaa kaaga qorshaysan in dadka noocaas oo boobka ku soo baxay looga hortagi karo waxaan rabaa inaan raacsado qodob kale madaxweyne ballanta ayada aad soo xasuuso ballan isla ogeedeen miya ballantaas waa bannaankan u malaynayaa waxaan siinayaa gabadhaas ninkaa gabadha siinaya magacaygu waa Safa Maxamed magacaygu waa Safa Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda ka dhigata saxaafadda madaxweynaha waxaan weydiin lahaa dowladdaadu way ku adag tahay la dhaqanka raallihow magaca ku celi magacaygu waa Safa Maxamed sur Safa Maxamed yes safa Maxamed safa miya yes okay magacaygu waa Safa Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda ka barata kulliyadda saxaafadda madaxweynaha waxaa weydiin lahaa dowladdaadu waxay ku adag tahay la dhaqanka saxaafadda waxaana soo dhow doorashadii oo fooda nagu soo haysa maxay tahay qorshaha u degsan ee lagala dhaqmi rabo saxafiyiinta waa mahadsan tahay halka oday muraayadaha wata aad buu maaragta dhaarna way ku jirtaa malaynaya inaan siiyo ku qasbanahay waa kaftumaya بسم الله بسم الله marka koowaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sida tanaasulka leh iyo maslaxadda soomaaliyeed oo isku haayo waxaan rabaa su-aasheeda inaan weydiiyo saddexda sano iyo barka hadda lasoo dhaafay xukuumadda wax shaqaale ah oo cusub lama qoran barnaamijka sanad walbana Soomaaliya iyo guud ahaan dhalinyaro badan ka soo baxa oo jaamacadaha ay soo saaraan marka maxay tahay qorshaha xukuumadda dhowrka bil harsan shaqa abuurka dhalinyarada oo ah in beerolka dawladda ay galaan dawladuna qorsheedu yahay su-aasha labaad aan xijinayo waxay tahay madaxweynaha hadda laga maqlin horta saakay baarlamaanka ayaa ansixiyey doorashadii qofka ugu horreeyay inaan naqdaan rabaa weydiiyo ah madaxweyne horta musharax ma tahay waa kow maadaama dalka doorasho uu galay oo doorasho uu aaday mar la ansixiyey magaceyguna waxaa waaye waa Fahad Cali Xasan fahad miya Fahad Cali Xasan fahad waa maasan tahay madaxweynaha siinayaa su-aalaha ka jawaab barnaamijka soo gabagabeynaa insha allah waqtiga nagu dheeraada awgeed raalli ka ahaada marka labada su-aalood insha allah waa saddex tahliil ubaxa caasimadda ayaa ugu horeeya
maxamed tahliil ubaxa caasimadda runtii waa dhallinyarada isxilqaantay oo bilicda magaalada iyo quruxda magaalada maalin iyo habeenba u soo jeeda oo runtii ka shaqeeya marka fadlan labada gacmood isugu geeya ninkaas shaqadiisa iyo ururkiisa shaqadaad qabato aad iyo aad ayaan runtii kaaga mahad celinaynaa oo volunteerka ah oo aad magaalada ku qurxiso waxaan rajaynayaa dhallinyarada kale inay kugu dayato hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha uu i weydiiyey waa su-aal saxa weeye doorasho walbaba waxbaa ka soo baxa wax la yidhaahdo perfect ma jirto khaldaad waa imaan karaan insha allah waxaan rajaynaynaa wixii khalad oo muuqda inaan qabanno oo aan meeshii lagu sixi karo aan ku saxno hadduu ilaah yidhaahdo laakiin election walba iyo doorasho walbaba waxbaa ka soo noqda oo wax iska normal ah ama ha ahaato africa ama waddamada hore u maray ha ahaadaan safa waxay tidhi annagu inaan u darannahay saxaafadda arrintaas waa dacaydna laga faafiyey adeer marka xaqiiq saxa ma aha waxaan aaminsanahay dowladdan inay aad uga shaqaysay wada shaqaynta tooska ah iyo maxaan ku raahdaa wada shaqaynta suxufiyiinta waa dhab weeye dee dad waxaa jira suxufiyiin u eg laakiin aanan ahayn suxufi waxaa laga yaabaa inaysan aqoonteeda lahayn iyo khibraddeedii khaldaad badan oo aanan caadi ahayn ay iska galayaan ama waxaa laga yaabaa qaarba inay meelo kale ku xiran yihiin ay shabaab ka mid tahay oo ay shaqo ku jiraan oo ay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaato iyo khalkhal u abuuri lahaayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ku dadaalno wax walba oo awooddeenna ah soo dhowayntooda iyo wada shaqayntooda ee bahda saxaafadda taas daliil waxaa u ah inaan saxiixay baarlamaankuna uu ansixiyey sharciga ugu horreeyey oo saxaafadda oo siinaya xuquuq la taaban karo suxufiyiinta iyo idaacadaha guud ahaan arrinta uu fahad weydiiyey arrinta shaqaalaha waxay ku xihan tahay dakhliga dowladda soo gala iyo miisaaniyaddeeda ku xihanta haddii miisaaniyadda dowladdu ay kor u kacdo khasbiyan waa inaan kordhino shaqaalaha dowladda u shaqeeya annagoo fiirinayna khibradahooda iyo karateriya ay ku soo galayaan hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha yaab kale oo aad weydiisay oo aan naga leeleexan karin jawaabteeda markay munaasab tahan kuu sheegi doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aad waa mahadsantihiin annagoo gabagabadii joogna oo wakhtigii uu naga dhammaaday waxaan ka cudur daaranaynaa inaan su-aalaha intaa ku ekeynin idinkoo raalli ah wakhtiga aad iyo aad u dheeraaday insha allah madaxweynaha ayaan ku celin doonaa barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey hay-adda raas ee cilmi baarista ah oo hay-ad soomaaliya oo ka dhisan waddanka gudihiisa waxaana marti maanta inoogu haa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo naga aqbalay iyo idinkoo martino ah ugu dambeyntii waxaan ku wareejinayaa madaxweynaha inoo soo xiri doona iyo su-aasha ugu dambeyso ah dad badan waxa ay aaminsan yihiin intii uu xilka qabtay inaanan soo fadhiisan meel fagaaro oo nuucyadan oo kaleeto aan aada u badnayn ma laga yaabo inuu sii kordhiyo inuu dadka la hadlo fagaarooyinka noocan oo kalea soo fadhiisto iyo raas mar kale iyo ugu dambeyntii waxa uu ku dari lahaa doorashada qaabkay u socoto dadka soomaalida wixii uu ku tegey waa mahadsan tahay cabdirasaaq aad baan runtiida kaga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo raas machadka raas institute hawshaan aad qabateen oo wacyigelinta ama inaan isweydiino wixii xaaladaha jira guud ahaan dalka khaasatan arrimaha doorashooyinka su-aal yaan rabaa lagu celceliyey inaan hal mar ku noqdo oo ah arrimaha tanaasulka tanaasulku waa wax wanaagsan laakiin dhaqankeena soomaaliga ma laha waa compromise waxa weeye qofku markuu tanaasulo waxaa loo akhriyaa in laga adkaaday ma aha in laga adkaado qofka hadduu walaalkiis u daayo isna waa loo deenayaa markiis macnaha markay timaado oo runtii tanaasulka aniga aan sameeyey hadda ay qayb ka tahay
sida aniga aan sheegay inuusan shisheeyena soo dhexgelin habeen dhaweydna waa yaro taabtay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo dhibaatooyinka dalkan soo maray intooda badan waxay ka timid tanaasul la'aan maxaa yeelay laba hogaamiya wax isku qabsanaya intay ka heshiin kareen ama compromise ay ka geli kareen nin walba ninka kale wuxuu rabaa inuu xarigga ku gooyo markaasna khasab waxaa imaanaysa in la soo dhex galo soomaali runtii way ka daashay in la soo dhex galo ama meelo looga yeero oo loo kala gar qaado wax wanaagsan ma ah muddo dheer ayaan ku soo jirnay hadda waxaan rabnaa marka in aan ka bislaan arrintaas oo aan majuur ka noqonno oo annagu aan raadinan dhexdeenna inaan isxalinno oo aan xal helno xalkaasna kow waxaa ka ah tanaasul culeysyada soomaaliya haysta culeysyada sahlan ma aha muddooyinkii lasoo dhaafay 30 sano aan iraahdee waxyaabihii nagu dhacaayey ma ahayn wax annaga dhexdeena keliya ma ahayn waxay ahayd wax naloola kacaayey oo qorshaysan laakiin annagaa isu muuqanna dhexdeena isu muuqanna hadda arrinta somalilan iyo annagu waa dhexdeena waa ka xallin karnaa waa wada fariisan karnaa laakiin dee waa loo baahanya mararkaas kale in dibadda loo baxo oo dowlado kale ay galaan suudaan dhibaatada haysata hadda 2 usbuuc ka bacdi south suudaan yaa dhex gelaysa oo heshiisiinaysa waa waddan xoog leh oo stable ahaa xasilooni siyaasadeed haystay muddo dheer oo dagaalo badan soo maray oo ka guulaystay cunaqabateyn badan oo lagu hayay muddo 25 sano ka badan hadda dhexdooda waxaa ku jira south suudaan oo heshiisiinaysa annaga marka ma doonayno in hawlaheenna ay dad kale soo galaan annagoo xallisan karna annagoo og soomaaliya inay meeshaan taallo inaysan ahayn wax accidenti ah wax kama ah inaysan ahayn ay tahay wax qayb designed ah oo la design gareeyey oo xaqiiqo ah waxaan idinka siinayaa tusaalooyin dowlado waxaa jira annaga sida aan nahay ku faa'iida yaa jira waxaa jira NGO-yo ku faa'iida annagu inaan dhibka ku jirno dowladahaasi waxay nooga faa'iidaan dhan dhaqaale waxay nooga faa'iidaan dhan siyaasad waxay nooga faa'iidaan dhan security iyo ciidan iyo nooga faa'iidaan dhanka dhaqaalaha soomaaliya dhaqaalo badanaa ku baxa dhaqaalahaas wuxuu soo maraa dowladahaas qaarkood iyuu soo maraa lacagahaas faraha badan intooda badan waxay ku hakadaan dowladahaas iyo ku hakadaan caasimadahooda waxay u abuurtaa shaqo abuur dadka u shaqeeya hay-adahaas hoteeladay degan yihiin guryahay degan yihiin makhaayadahay wax ka cunaan dhaqaalahaas waddamadaas ay joogaan yay kabaan haddii marka soomaaliya arrinteeda ay xalismato dhaqaalahaas will dry up waa joogsanaysaa dhaqaalahaas iyagu culays iyo ku noqonaysaa marka shaqo la'aana ku dhacaysa hoteeladooda waa xirmayaan makhaayadahooda waa xirmayaan marka ma rabaan annaga inaan waxayna xalisanno oo dalkan uu dego ma rabaan maxaa yeelay lacagahaas bilyanska ah oo dalalkaas ku socda oo bangiyadooda ku socda waa joogsanaysaa waxaa intaas dheer ganacsatadeenna bacdamaa ay ka baqaayaan inay maal gashadaan mararka qaarkood xasiloonida siyaasadeed darteed amni darrada darteed waxaa laga yaabaa inay maal gashadaan dowladahaas inay dalalkaas inay maal gashadaan oo iyo ganacsiyo kale ay ku galaan lacagahaas ama bangiyadaas ee xawaaladaha ay dhigtaan lacagahaas oo ay dhiibaan fee ama canshuur ay dhiibaan lacagahaas waa lacaga ka maqan soomaaliya ka maqan soomaaliya hadday degto dhaqaalahaas ganacsatadeen ay ku maalgashanayaan dowladahaas ama dalalkaas waa joogsanaysaa sidaas darteed dalalkaas waxay rabaan xaaladahan ku jirno inay ku jiraan intaas waxaa dheer diaspora waa dhaqaale kale waa yimaadaan dalka oo soomaalida socodkooda waa reer guuraa baan nahay socodkoodu waa badan yahay waddamadaas ku soo hakadaan hoteeladay degaan mararka qaarkood markay jeclaadaan waddamadaas xasiloonida ay haystaan iyo deganaanshaha guryahay ka gataan ama ganacsi ay ka galaan ama hadduusan lacag badan haysan hoteelada maalmaha uu joogo lacago badan uu ku bixiyaa lacagahaas waxaa laga yaabi karaa haddii ay halkan toos u keenaan dhaqaalo badan inuu dalka geli lahaa iyo maalgashi lacagahaas oo dhan waa joogsanayaan soomaaliya hadday xasilooni ka dhalato waa joogsanayaan
waxaana ka hadlayaa 6 bilyan 7 bilyan oo dollar yaa laga yaabaa oo GDP-ga dalkaas kor u qaadaya oo annaga naga maqan waxaa intaas dheer arrimaha siyaasadda annagu haddaan aan kala maqannahay oo aan kala joogno oo aynan israbin waan la soo dhexgelayaa oo dowladahaas waxay rabaan inay sii kala qaybiyaan oo weliba ay nagu faanaan ay yidhahdaan annagaa Soomaaliya ku dhex jirnaa oo waxaasaan u qabannaa meelahay ka qudbeenayaan shirarka waaweyn caalamka waa inay ku soo darsadaan hal baaragraaf ama hal sentence Soomaaliyan wax tarnay oo shirarkoodan casunnay ama waxbaan u qabannay marka dam waxay ugu jirtaa inaan kala qaybsannahay inaan xasiloon la'aan ay jirto inayna kala qaarkeen la hadlayaan oo inayna kala qaybinayaan amnigu waa sidaasoo kale wey iyo security-ga way rabaan inaan tabar darannahay oo aan liidanno waa tabar darnaanaysaa ciidan ma haysanaysid dalka difaaca inta dalku uusan xasiloonin la'aan ay jirto inta dhaqaalahaas kaa maqan yihiin waa canshuur kaa maqan ciidan ma dhisan kartid dalkaaga ma difaacan kartid marka sidaas darteed waa inaan tanaasulno waa inaan isu tanaasulno si dalkeenna xasiloonidii usoo noqoto si dhaqaalaheenna u kobco si siyaasaddeena ay u deganaato si ciidan aan u helno xuduudihiisa difaaca cir iyo dhul iyo meel walbaba difaaca sidaas darteed ogaada tanaasulku mar walba waa fiican yahay waa inaan isu tanaasulno waa inaan baranno inaan isu tanaasulno ogaada waxaan bilaabayna ma aha anigu waxay iga bilaabtay Kampala Accord waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsanyahay madaxweynaha waan fasaxaynaa insha allah waxaan ka cudur daaranaynaa inaan su'aalaha dadkoo dhan wada gaari karin waqtigoo naga dhammaada awgeed barnaamijka intaasuu nagu xiran yahay aad u mahadsan